nabadii warsan meel baad iga daawanaysaan waa maskiintii Kawsar ahayadii soo salaamaysa saacad kasta hadda kugu salaamaya dabaaldegi ayaa diyaar garow dabaaldegi Kawsar ku jirta wareegii saddexaad loo gudbay doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wareegii labaad waxa isku soo baxay ilaa 4 musharax oo ay kala ahaayeen Xasan Cali Khayre Saciid Cabdullaahi Dani Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Sheekh Maxamuud codadka ugu badan waxa helay madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo asagana madaxweynihii hore waqtigiisii ilaanaya oo gabagaba ahaa doorashadii hadda ka sii dagay kursiga dadku waxay isweydiinayaan labadan musharax ee ugu sareeyay hadda wareegii saddexaad galaya ma mid baad u tanaasuli doona mid kale mise sida xilbaanada ay ku kala baxayaan tirinta codadka ayaa loo bilaabayaa xaqiiqatan waxay ahayd doorasho aan inaba caadi ahayn sababtoo ah tirada intii la ekaayeen musharaxiinta iyo sidii hal mar wareegii koowaad ay ugu wada hareen ayaa wax la siisan karaba ahayn marka dad la filaynin in wareega labaad soo gaarayaan xitaa way dhacday marka bulshadana qofba wuxuu taageersan yahay mid kamid ah musharaxiinta dhamaantooda wadanka inay hogaamiyaan ay u tartamayaan waa wax aad u wanaagsan wayna wanaagsan tahay qurux badan tahay qofkii u arka in dalkiisa uu hogaamin kara oo ka qayb qaadan kara mar walba anaga ka bulsho ahaan waa soo dhaweynayna laakiin muhiimadda waxay tahay in dadka iyo dalka si daacad ah wax loogu qabto walaalayaal muddo badan baan ku jirnaa anaga burbur ayaan ku dhalanay burbur aan kusoo kornay maantana dalkeena ahayn ayaan dabarsanaynaa oo wadankeena kuma noolin marka waxaan u baahnaa lahayn in wadankeena uu helo madaxweyne daacad ah oo dadka iyo dalkaba u damqada si dalkeena aan dib ugu noqono insha Allah hadduu Ilaahay nafti nagu simo Xasan Cali Khayre wuxuu helay 63 cod sidoo kale Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynihii hore Puntland oo hadda halka madaxtinimo ka soo doontay wuxuu isagana helay 68 dhibcood waa dadaaleen laakiin labadooda wareegii labaad ay ku hareen hadda kaliya waxa tartamaya waa Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore Soomaaliya oo xilkii ku wareejiyay waqtiga horeba Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isaga hore uga soo baxay doorashadii waqtiga dhacday marka 2017 weeyaan haddana ma Farmaajo ay noo soo noqon doona mise Xasan Sheekh Maxamuud ay noo soo noqon doona bal daawada fikirkaaga way noo muhiim labadooda kii soo baxaba mar walba hadaan nahay ka bulshahan waan u saabtameynaa waan u dabaaldegaynaa waxaan rajaynaynaa inuu dalka iyo dadka